dhawaan ayaa gobolka Sanaag lagaga dhawaaqay jabhad la baxday xaqdoon. Jabhadaas ayaa waxa lagu eedeeyay in uu aasaasay Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow oo kamid ah bahda dhaqanka ee Soomaaliland. Telefishinka bulshada ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow oo ku sugan dalka Sultanka Imaaraadka Carabta. Boqorka ayaa ugu horreyn weydiiyay in uu ku lug leeyahay jabhadaasi iyo inay jirto waaran qabasho ah oo ay xukuumadda Soomaaliland u jartay. Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow ayaa telefishinka bulshada ugu jawaabay. waxaan doonayaa inaan ku sheego wax waaran ah iyo cid aan tarsiyan isu hayno cid waaran iyo wax dhibaato aan anigu igu timi ama liiga difaacaya oo jira horta ma jirto. waa tan labaad waxa weeyaan run ahaantii aniga de waa la yaqaanaa anigu waxaan ka shaqeeyay waa la yaqaanaa waxaan ka shaqeeyaa waa nabad weeye waxaan ka shaqeeyaa isu dhawaan weeye waxaan ka shaqeeyaa waxa weeye ummadda isu keenkeeda iyo midnimadeeda weeye waxa weeyaan anagu waan ogtahay jabhadihii sanadka 4 sanadood ka aloognaa ee ka aasaasay gobolka Sanaag waxa weeyaan intaba si salmiyo nabadgelyo waanu kaga shaqeynay waanu geynay gaadiidkoodii waxaan ku wareejinay xukuumadda anagu waxa weeyaan waxaanu mar walbana taageeraynaa ummadda isu keenkooda iyo midnimadooda iyo isu ururintooda wax tafaraaruqa oo aan taageero ama aan ka shaqeynaa ma jirto waxaan noo arkaa inamadaasi waan arkayay hadlay dareenkooda iyo shucuurtooda ayay ku hadleen waxayna hadleen inamadaasi tabashaa jirtay ay ka hadleen inamada marka hore ciidamadaanu ku ogeyn xukuumaddaanu ku ogeyn inama dawladda u shaqeeyay ahaayeen inamadii dee way muuqataa tabashaa jirta annagu ka waayeel ahaan xukuumaddana waxaanu leenahay tabashada jirta ama beesha ha timaado ama inamada ha ka timaadee xukuumadda waxaanu leenahay tabashada waxa laga qabto jabhadayn anagu xal uma aragno iyo isdil iyo dhibaato iyo khalkhal qaranka dhibaato lagama baahna xukuumaddana waxaanu leenahay arrinkaa waa inay si odaytinima waayiltinima inamadaa dee ciidamadaanu ku ogeyn waan arkayo media cabashay la yimaadeen kacdoon baa yimi wax walibana intay dhow yihiin in wax laga qabtaa wanaagsan waayeelkii odayaashiina anagu waanu kala hadalnay arrinkaa in wax laga qabto wixii la sheeganayana si dhow ahoo wanaagsan loo sheegto arrinkuna aanu dhaafinin waan kala hadalnay waxaan leenahay xukuumaddana inamadana arrinkooda ayaan la dhayalsan waxa laga qabto anagana waxa weeyaan cidda aniga igu soo leexinaysa ama haddii aan laba leeyahay boqorkaa ka dambeeya waa cid jecel sharaftayda iyo karaamadayda iyo odaynimadayda iyo waxaanan dhaqan u lahayn inay igu riixdo anigu waxaan doonayaa mandaqada tani inay nabad ahaato nabad baa laygu bartay nabad baan ku shaqaynayay nabad bay shaqadaydu tahay wax alla wax dhibaataa oo aan ummadda Soomaaliland la doonayaa ma jirto hadday cabasho tahayna anigu cabashan guud baan ka hadlaa tabasho guud oo Soomaaliland ardaan ka hadlaa mid ardaaba kama hadlo Boqor Cismaan kama hadlo haddaan kaa dhex galo waxaad sheegtay inay jirto cabasho marka ma waxaad u aragtaa inay cabashadooda sidaa u dhiibtaan iyagu anigu ma waxaan rabaa in cabashada waayeelkooda iyo iyagaba la dhegaysto baan qabaa oo arrinku halkaa lagu joojiyo oo cabasho sidii loo xalili jiro oo waayeelnimaha oo dawladnimaha oo ummadda laysu keeno oo laga wada hadlaan qabaa anigu inamada waxa weeyaan cabashan bay cabashay sheeganayaan ciidamadaanu ku ogeyn waa niman bilayska iyo militarigaba ka tirsan anagu waxaanu qabnaa cabashadooda ay sheeganayaan iyana inay si salmiya oo nabadgelyo u dhiibtaan si salmiya oo nabadgelyaana looga jawaabo inamadana waa ciidamo qaran waxay yidhaahdeen gooni goosad ayaa beesha adigu aad u tahay boqorka ay doonaysaa ta koobaad laba su'aalood dalka kaa weydiin doona adigu miyaad kula socotaa gooni goosadkaa si cad haddaad u sheegto tan labaad ma u aragtaa inay khalad yihiin ciidan qaran maanta mar labaad waanu goosanaynaa oo ma kula tahay sharciga la horgeeyo waxaan ku weydiiyey Soomaaliland arrimaheeda concept baa lagu dhameeyaa cid awood isku maquuraysaa ma jirto laakiin haddii maanta wax laga qabo waa soo biri kuwa kalena goosamaya Boqor Cismaanow war kuwii hore goostayba xoog laguma maquurin aan heray dhegeyso odaytinimo iyo concept baa loo maray anigu waxaan qabaa kuwa nimadana xaajadooda inaan la fogeyn inaan la cuslayn in miidiyahan iyo kor u qaadida iyo sharka laga daayo batroolka lagu shubayo laga daayo inamadu waxa weeyaan arrinkooda anigu ma aaminsan ma soo dhaweynayo Soomaaliland inay burburto Soomaaliland in la kala googooyo Soomaaliland in la kala qoqobo Soomaaliland in la kala qabiileeyo
habar jeclo in la kala qabiileeyo midna ma doonayo anugu waxa weeyaan waxaan wax midnimo ayaan mar walba u taagnahay inamadana waxaan leeyahay arrinkooda si consensus Somaliland sidii wanaagsanayd ay arrimaheedu xalilan jirtay loo xaliliyo ma foga arinku ma foga yaan la fogaynin baan leeyahay aduu boqorkoodii baa tahay wayna taageerinu ku muujinay adigu maanta dadka ku dhageysanay ma u ballan qaadayna si shakhsiyan u dhameyn karayso maadaama adiga ay ku aydsiin si hadleeyeen waxaan ku anigu hadda imaaraadkan joogaa anigu waxaan qabaa inamada anigu odaygoodii inaan hayo odayaashooda ka mid ahay odayaal fara badan baanu nahay waa beel weyn baanu nahay inamadayadii weeye ma dedefaynayno waxa weeye arrinkooda inaanu xoogaal u noqono iyo waxay tabanayaanba inaanu ciddii ay wax ka tabanayaanba laga hor fadhiisto waanu doonaynaa si waayeelnimaa loo xalilo laakiinse wax rabshada iyo wax buuqa ma doonayno iyaguna inay ku kacaan ma doonayno dad badan baa ku eedeynaya boqor cismaan oo intaad adiguba aragtay waxay leeyihiin boqorka hore hub iyo ciidan buu lahaa qaar buu dowladda kusoo wareejiyey kuwan haddana isagaa dhabarka soo taabtay bal dadka maxaad ugu cadaynaysaa si cad inaanad adigu faraha kula jirin jawaabda horta waxa weeyaan si horena way fashilantay madaxweynuhu waa tuu idaacadaha kaga hadlay yidhi boqorkaa hub kale been bay noqotay beel baa iska lahayd beeshii bay ka wada hadleen beeshii baa ku wareejisay waaban iska maqnaaba dalkaba maan joogin waxa weeyaan arrinkuna meeshuu taagan yahay in laga kaxeeyo waxa weeye waa khalad weeye aniga dee waxa weeyaan dee qofku waxaanu qabin waa la iska eedayn karaa oo eeddu way furan tahay waayeel baanu nahay waxgarad baanu nahay eedda laakiin anigu waxaan doonaya inaan kuu sheego anigu jabhadana melihi jabhadana ma samaysan nimankan haddii laleeyahay isku reer baatayni ama oday baad u tahayna taa ma dafirayo mana diidayo laakiinse waxa weye arrinkoodana tabashadoodana in waddada ay leedahay loo maro ayaan qabaa aan xoog iyo caburin iyo buuq iyo taasina waxba ku iman maayaan Somalilandna arrinkeeda consensus bay ku dhamaysan jirtay waddadii in loo maraa qaba beeshaad ka soo jeeda boqorka u tahay dowladda waxaa ku leedahay wasiiro iyo mas-uuliyiin saameyn leh arrintan adigu ma kala hadashay sidii loo dhamayn lahaa wasiiradaasi wasiiradu iyaga ayay ku tahay nusqaan inaanay beeshooda isu ahayn iyagaa reerka siyaasiyiin u ah kumana haysano waana inamadoodii waanu simanahay iyagaa laga yaqaanaa iyagaa wasiirowa iyagaa ku ogeyn wixii dowladda ka tirsan wasiirada ayaa reerka annagu wixii reer miye iyo dadka shacabka ee caadigaa baanu toos oo hagaayeen ugu nahay laakiin wixii ciidana ka dhibaatadu gaadhi ay ka cabanayaan iyo saraakiisha la leynayo ee aan waxba laga qabanayn wasiirada la rabaa inay qanciyaan ciidanka iyo beeshaba ay qanciyaan inay qanciyaan haddii allaba leeyahay kuwa darajadoodii iyo xilalkoodii iyo waxoodii ka cabanaya wasiirada laga rabaa inay qanciyaan hawshaasi wasiirada utaalla xukuumadda utaalla wixii aanu kala qaban karana waa kala qaban karaa dhowaan waxaa dad badan aad ogeyd inay kugu eedeynayeen arrimihii salaadiintii arrimaha wadahadallada Soomaaliya in ay dowladda Soomaaliya ee dhabarka ka soo taabatay walaad ka difaacday waa maxay xiriirka ka dhaxayn karaya arrinta wadahadallada ee lagugu eedeynayay dowladda Soomaaliya iyo arrinta jawaabta hadda lagugu eedeynaya horta waxa weeyaan arrinka wadahadallada waa arrin albaabkiisu furan yahay baarlamaanku furay sharciyadu furtay anagu waxaanu leenahay salaadiinta iyadu kulligayba aanu ka midaysnayn oo aanu ka wada hadalnay haddeer aanu ka midaysannahay xukuumadda waxaanu leenahay wadahadallada inaad gasho waa sax waanu soo dhawaynaynaa galaanu leenahay arrinteenu inaanay meel dhexe ka laadlaadin baa loo baahan yahay in wax laga qabtaa loo baahan yahay laakiin waxaanu leenahay dee waxa weeyaan xaq baanu leenahay hadalna ugaga carari mayno xamar in la isku eedeeyo xamar eedeeda haddii annaga madaxweynaha nooga dhow madaxweynaha farwaanshaysakeen isagay wada fadhiisteen adeer dhegaysade hold on ilaa su-aal baad weydiisee waxaan ku yidhi madaxweynahay nooga dhow madaxweynahay wada xidhiidheen iyagay wada hadlaan iyagay ballama leeyihiin annaga waxaanu leenahay wadahadalladana inoo wad taladana waxa lagula sanad wadahadalladana si cadoo kale yaraan uga hadlay waxaan ka aaminsanahay haddeerna waan aaminsanahay waxaana leenahay gala dhaqsow gala wada laakiin talo loo dhan yahay oo loo midaysan yahay oo Somaliland oo dhan hareeraha ka fadhido ha noqoto oo aynu haddii aan laba leeyahay beelaha darafyada ee haddii aan laba leeyahay iyo khaatimo iyo cid walba lagu soo casubo oo Somaliland inagoo aynu koonfur wada hadallo waan aaminsanahay waan dhiirigelinaya waan soo dhaweynaya laakiin anigu waxaan ku sheegayaa shacbiga iyo ummadda u cadaynaya anigu jabhadaan samaystay ma jiro jabhada anagu haddii laba leeyahay reer ahaana beel ahaana aanu tala ku samaysanay ma jirto laakiin inamadaas waa inamo beesha ka mid a waana inamo wax tabanaya
haddii aan wax laga qabanna waxa weeyaan dhibteeday leedahay wuxuna intay dow yihiin in wax laga qabtaa fiican in laygu eedeeyo ama cid kale lagu eedeeyana waxa ka wanaagsan xukuumaddu iyada intelligence leh iyada sirdoon leh cabashada inamadana ha ka jawaabto ha baadho waayeelkeeda hala tashato intay eedayn lahayd waayeelka ama cid kale eedayn lahayd ama ummadda la kala qaybin lahaa shaki lagu kala bini lahaa in arrinka inamadu waxay tabanayaan waayeelkiina anagu waayeel ahaan diyaar baanu nahay wixii waxaa laga qabanaya la isugu soo dhaweynaya iminka Dubai baad joogtaa diyaar ma u tahay inaad Hargeysa timaado arrintaadu waa si toos u dhamayso dabcan aniga xaajadu keligay igama goodo laakiin soo boqorkoodii ma tihi anigu de waxa weeye reerku madax dhaqameed badan buu leeyahay waanu wada tashanaynaa waanu ka midaysannahay wax walba oo wanaaga iyo nabadgelyada waanu ka midaysannahay beeshuna waa beesha ugu nabadgelyada badan ugu dambeyntii boqor sow maaha mas-uuliyadda aduu ma lihid ma waxaad leedahay mas-uuliyadda cid kale aan leh iminka dhamaystirkeeda inamada mas-uuliyaddooda xukuumaddaa leh maadaama ay askar laha ahaayeen ciidan qaran ahaayeen xukuumaddaa leh xukuumadda waxa u siilay wasiirada beesha iskale annagu waxa weeyaan waayeel baanu nahay waayeelkana taladu keligay maahe waayeel badan iyo madax dhaqameed badan buu reerku leeyahay waayeelka iyo madax dhaqameedkayga waxaanu ka midaysannahay inamadaasi kacdoonka ay bilaabeen ay ciidamadii kaga yimaadeen in arrinkaa wax laga qabto oo la dejiyo aan xukuumaddana kala shaqayno ayaanu diyaarun Luqmaan Maxamed Faarax Bulsha TV Hargeysa